anigu waxaan garanayaa magaalada aynu joogno galab casara ayaa qoys qof dumar u timi markaas anigu markii ficilku dhacay baan imi gurigii qof dumar albaabkii dambe ka soo gashay guriga ninkii reer kale ahaana ma joogo qoftii dumar ahaydna talow mas'uuligay ku jirtay mise xaafadaha dariskay u wareegtay dabeetana qoftii dumar ahayd baa caruurtii yareed aqalkii ka furtay inan yaro reerka joogtay oo 3-4 jir ah ayaa marka aqalka daaradiisa socota islaantii waxay tidhi hooyo ma joogtaa ma joogto dabeetana oo inantan yare quruxda badan ee cad ee aqalka dhex socota ee carabta la moodaa yamaniyada maxay ahayd waa walaashayo haye soo xidha albaabka waa tagayaa albaabkii way ka xidheen caruurtii markay soo noqdeen inantii dhulkayba taala afkiina waa qalloocday abuurna afkii ka sii deynaysa saas u khikhlaad inantii anigu markaasaan soo gaaro u imi 3 jeer ba afkeedii qalloocday halkaasuu marka hore u qalloocday dhakhtar iyo waxba la geeyay quraan baa lagu akhriyay wuu soo noqday afkeedii midig buu haddana u qalloocday markii saddexaad buu soo noqday oo meeshii hore haddana u qalloocday markii afaraad baa ilaahay u soo celiyay subxaanahu wa ta'ala hadda waa qof weyn oo 20 ku dhow joogta laakiin aad ka dareemayso afkeedii in wax ka sii yihiin wili qof shimbir ku dhacday oo kale aad moodayso ta'athirka ishu ay leedahay weeyaan